kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada maanta ku gaarana waxaa ka mid noqon doona ceeb iyo fadeexad weyn ayay wajahayaan dhalinyaradii caanka ah baraha bulshada sida weyn dadka ay u garan og yihiin Bilaal Bulshaabi iyo Kasoor laba saaxiibo oo ceesho milax ahaa imanka waxa isku qabsadeen lacagihii loogu talagalay oo lagu daaweyn lahaa kadib markii Bilaal Bulshaabi iyo saaxiibkiisa Kasoor kooxo beesan ay ku dhaawaceen Muqdisho imanka Turkiga ay ku sugayeen halkaas ay iska soo weerarayaan muuqaal la yaab leh ayay soo geliyeen barahooda gaarka ah midka kale ayuu eedeynaya waan idin soo gudbin doonaa Bilaal oo afka furtay ee Kasoorana eedo culus u jeediyay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dawladda ayaa mar kale xiray xogii ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed SJS Cabdalla Muumin saxaafadii oo wajahaysa dhibaatadii ugu weyneyd ee caburin dam jadiid oo nidaam halis ah ku bilowday dhanka iyo saxaafadda waa daawo doonta xidhiga mar kale Cabdalla Muumin wuxuu ka dhigan yahay waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa dowladda federaalka ayaa soo dhaweysay tallaabada Soomaali badan oo markaasi rogeen liiska wax loogu yeero argagixisada waxaa kaloo daawo doontaan siyaasiyiinta beesha habar gidir oo kulankii ugu dambeeyay yeesheen soona gabagabay dagaal ka ah al-shabaabna ku baaqay waxaa hogaamin doona wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble jiida hore dagaalka ayuu sheegay inay tagi doonaan qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa wararka caalamka diblomaasiyadda fadlan haddii aad noqoto subscribe una sargan balaalkana furo una sii share gareeya saxibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno ceeb iyo fadeexad weyn ayaa baraha bulshada mar qura isqabsaday kadib markii saaxiibadii ceesho milaxa ahaa muddo badan isla soo socday caana ka ah baraha bulshada TikTok-ga waa madaxweynihii TikTok-ga Bilaal Bulshaabi iyo saaxiibkiisa Kasoor oo markaas Muqdisho lagu dhaawacay iyagoo markaas wada jira dabli hubaysanna ay doonayeen inay nafta dhaafiyaan labadooda hase yeeshee tii alla markaas ay ku nool yihiin ayaa markaan waxa ay labadoodiiba ay noqdeen kuwa markaas isku qabsada hanti ay dadka Soomaaliyeed u aruureen taa loogu talagalay in noloshooda lagu daaweeyo laguna baxnaaniyo hase yeeshee Bilaal Bulshaabi ayaa lagu eedeeyay inuu noqday haamaan oo markaas kaligiis cunaa calooshiisna u shaqeysta lacagii dadkii ay ugu talagaleen in noloshooda lagu baxnaaniyana kaligiis markaas la sheegay inuu ku furan doono shopping dukaan iyo meelo kale oo maalayacni ah sida uu hadalku u dhigay saaxiibkiisa Kasoor oo asigna afka furtay kadib muuqaalo baraha bulshada la soo geliyay xalay oo si weyn loo faaqiday Kasoor ayaa sheegay in Bilaal Bulshaabi lacagii $10,000 Mareykanka ahaa ee dadka shacabka ay u aruureen laguna talagalay in markaas labadoodaba caafimaadkooda lagula tacaalo dalka Turkiga ayaa wuxuu sheegay in Bilaal kaligiis uu noqday mid gooni u goosta lacagtaasina kaligiis oo markaas akoonadiisa ay ku dhaceen kun shilin oo Soomaaliya aan laga siin Kasoor oo asiga markaas sidaasi warbaahintu u xaqiijiyay dhinaca kale Bilaal oo careysan arinta saaxiibkiisana ka careysan kala kulaaday ayaa dhankiisa afka furtay isagoona sheegay in uu aad ugu xun yahay waxa ka soo yeeray Kasoorna saaxiibkiisa ay hayeen wax markaas maran hawaabin ah oo dad ay markaas ku xun noloshoodana ay soo dirdireen Bilaal wuxuu sheegay in arintan ay ka dambeeyaan fanaaniin YouTubero iyo TikTokley oo markaas sheegay in ay ku xun yihiin sida markaas dadka Soomaaliyeed ay u caawiyeen sida Bilaal hadal ku dhigay si uu qudhiisa Bilaal wuxuu kaloo sheegay in saaxiibkiisa Kasoor uu yahay nin cabtooy ah oo daraagis isticmaala waalidkiisana aan ka soo duceysan kana soo dhuuntay waa eedo dabcan waa eedeemo waaweyn oo Bilaal uu markaas dhankiisa iskaga jawaabay halka Bilaal uu iska fogay in lacag $10,000 Mareykanka usna waxba ka ogeyn meel la geeyay oo ka warqabin taa bedelkeeda caafimaadka Turkiga uu aadana ay tahay mid ehelkiisa iyo qaraabadiisana ay ka gacan siiyeen Kasoor qodhiis wuxuu sheegay in markaas ay waalidiintiisana ay ku qanacsan in dalka Turkiga la geeyay isla markaana aysan jirin sabab waalidkiisa ugu soo dhuuntay haddaba saaxiibadan waxaa loogu baaqayaa in markaas ay heshiyaan oo arintooda hoos loo xaliyo muuqaalo la yaab leh ayaana markaasi qaybaha dambe ku daawan doontaan waxaa kale ugu weyn dad ayaa aad ugu ganacsanaya arintan oo sii hurnaya oo markaas colaada labadan saaxiibada ah markaas sii hurnaya haddaba arintaas sidee kula tahay commentiga ra'yigaaga noogu reeb aad baad u mahadsantihiin aan ku sii socono saaxiibayaal qodobada kale hordhac barnaamijkan aad ku soo maqasheen ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa mar kale xabsiga dhigay Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogayaha ururka SJS ee suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde xilli uu doonayay inuu dhoofo magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana dib loogu celiyay xarunta CID oo markii horeba uu ku xirnaa
ururka SJS ayaa sheegay in Cabdalla uu xaalad caafimaad ugu socdo dalka Kenya isagoo wajahaya caafimaad daro dhinaca kaliyaha kadib markaasi xiristiisii ay halis ku tahay caafimaadkiisa. maxkamadda ayaa diidan inuu Cabdalla u safro iyadoona kaliya u ogal inuu gudaha Muqdisho joogo inkastoo aanay taasi ku cadeen daminkana lagu sii deeyay inkastoo taasi aysan cadeen damiinna lagu sii deeyay dhawaan. Cabdalla ayaa damiin lagu sii daayay maalintii Axadda kadib markii uu xirnaa 11 bishan waxaa lagu soo eedeeyay eedo ku saabsan ka hor imaanshaha awaamir dowladda ay soo saartay. maxkamadda gobolka ayaana dib u dhigtay kiiska muddo 45 maalmood ah iyadoona Cabdalla Axmed Muumin lagu sii daayay damiin. iminka saxaafadii Soomaaliyeed waxay wajahaysaa xaalado aad u halis ah, caburin iyo sidoo kale ku takrifal awoodeed oo dhankaas dowladda ugu imaanaya. Cabdalla Axmed Muumin wuxuu yahay nin u dooda dhanka iyo suxufiyiinta u dhaqdhaqaaqa oo sharci darada lagu haysto hase yeeshee iminka waxaaba saxaafadii wajahaysaa tiim dam jadiidna ay ku sameynayaan. saxaafaddu waxay tahay wax aan la aqbali karin. dhinaca cadaalad lagu magacaabo oo sheegtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaana arrintaas kow ka ah oo sharciyad jeebadiisa uu kasoo qaatana uu saxaafaddu kula dhaqmayo. aad ayaana loo cambaareynaya arrintaasi. qaybihii dhexe ee janalkeena ayaa daawanaysaa saaxiibayaal haddii aad noqon sabto subscribe noo saar gambalada kana furo una sii sheergaleen saaxiibadii meel kasta jooga idinku commentiga like noo reebaya. aad baad u mahadsantihiin. markaana dowladda Soomaaliya ayaa war la yaab leh ka soo saartay tallaabadii dowladda Mareykanka xayiraad ee ku saartay shakhsiyaad dhinaca dhaqaalaha iyo saarka al-shabaab ee ka tirsan kooxda al-shabaab. laamaha kala duwan ee dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la farayaa inay ka fogaadaan la macaamilka iyo wada shaqeynta shakhsiyaadka dambiilayaasha ah ee ku xusan liiska cunaqabataynta ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. dowladda ayaa sheegtay in tallaabadan ay dowladda Mareykanka qaaday markii baaritaano ay si wajir ay u wadeen labada dowladood ee Soomaaliya iyo Mareykanka waxayna qayb ka tahay baadiyay dagaalka lagu ciribtirayo waxa loogu yeero argagixisada. dowladda ayaana dhan walba kala dagaalamaysa ururka al-shabaab halkaas oo dagaalo culusna ay guud ahaan dalka ay ka socdaan. si gaar ah Hiiraan markii loo eegana waa meelaha ugu daran al-shabaab markaasi dab culus lagu gaarsiiyay. bal markaana siyaasiyiinta beesha Habargeeda ayaan eegaynaa kulan ay maalmaha soo dhaafay ugu socday magaalada Dhuusamareb ee Galmudug ayay soo gabagabeeyeen madaxweynaha Galmudug qoorqoor wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo dhammaan siyaasiyiinta beesha Habargeeda ayaana kulmadoodii kadib warbaahinta la hadlay ayagoona sheegay in ay markaas diyaar u yihiin in Galmudug ay ka sifayaan ururka al-shabaab deegaanada ay kaga sugiin. waxaana ay wasaarihii hore oo sheegay waa Maxamed Xuseen Rooble in ay yihiin markaas dad cilaan u saaran haddii awoowayaasha buu yiri ay sidaan u arkaan waxay xaqiiq u marayaan buu yiri ama ku dhaaranayaan in aysan dhalin waana ay keenayaan buu yiri. waa dabcan is-eedeen aad u weyn oo dhinacyadu ay is-eedeynayaan. waxaan taas ay cadeynaysaa in siyaasiyiinta beesha Habargeeda ay macaadeen ayna imika diyaar u yihiin dagaalka dhanka ururka al-shabaab. wararka gobolka intaan aadeen dhinaca kale gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne Cali Guud ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kalena ay dhawaan isku furi doonaan furmaha dagaalka ee Shabeellaha Dhexe yihiin. Cali Guud oo ku sugan deegaanka Raagayle ayaa sheegay in ujeedku uu yahay si ay u qabsan lahaayeen degmada Aadan Yabaal ah saligii ugu weynaa ee al-shabaab halkaas ku lahaayeen. niman dowladda ku deegaanka ayaa u tilmaamay inay haatan joogaan deegaanka biyo cadde ayna ugu sii gudbayaan mirtaqabo kadibna ay u sii tilaabi doonaan البرف يا الدير halkaas oo ay ka galaan Aadan Yabaal oo meesha al-shabaab ay ka soo abaabaan duulaanka ay ka geystaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Cali Guud ayaa markaas sheegay in ay markaas ay doonayaan in markaas la soo afjaro ururka al-shabaab halkaas ku sugan. wararka arrimaha gobolka waxa ugu waaweyn saaxiibayaal ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ayaa magaalo hor leh markaas ka qabsay Tigreega. ciidamada Itoobiya ayaa qabsay 3 magaalo oo ka tirsan gobolka Tigray oo gobolka waqooyiga Tigray sida ay dawladdu sheegtay waxaana laba kamid ah magaalooyinkaas ay u dhow yihiin koonfurta magaalada caasimadda Tigray ee Banqalle. ciidamada Itoobiya iyo xulufadooda oo ay ku jiraan ciidamo ka socda dalka deriskiin Eritrea ayaa dagaal goos kula jiraan ciidamada Tigray muddo 2 sano waxaana olaadaasi garaftay kumayaal qof malaayiin qofna ay ku barakiciyeen halka boqolaal kun oo kalena ay qalku saayeen xaalad macluul ah. qaramada midoobay iyo midowga Yurub iyo dhowr sarkaal oo Mareykan ah madaxda dawladda ayaa dhammaantood ku baaqay xabad joojin degdeg ah in la bilaabo wada hadallo ay garwadeen ka midowga Afrika iyo ciidamada Eritrea laga saaro Itoobiya. wararka wanaagsan ee caalamka janalkeena ka soo jeedina daawadaan waa laga taa fadlan subscribe kana saar gambal